laba malag baa qofka qabriga dhexdeeda ku sugaysa deedna way soo fadhiisinayaan waxay weydiinayaan saddex su'aalood man rabbuka man nabiyuka maa diinuka rabbigaagu kumuu ahaa baa la odhan doonaa ayaa ku rabbaynayey ayaa ku arsaaqaayey ayaad macbuud ka dhigatood caabudaysay ayaad baahidaadiiyo baryadaada u sheeganaysay man nabiyuka nebigaagu ayuu ahaa mucallimkaaga ayuu ahaayo ayaad dhaqan iyo maaragtaane iyo nolosha ku dayashadeeda ayaad kaga dayanaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd baa la odhan doonaa marka qofkii muuminkii ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo caabuday ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo yaqaanay ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelinayey ee adduunka dusheeda nebigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii iyo sunnadiisii la yimiday waxau odhan doonaa rabbigay waa allaah diintayduna waa islaam nebigaygii waa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkii ilaahay buu odhan doonaa kanaad i weydiinaysaan waa rasuulkaygii muxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allaahu aldaalimiina wayafcalu allaahu maa yashaa ilaahay casa wajalla dadkii mu'miniinta ahaa ee adduunka dusheeda ilaahay kaga soo cabsan jiray ee adduunka dusheeda ilaahay ku baryi jiray ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelin jiray dariiqa nebiga soo raacay ee diintooda islaamka intay barteenna ku dhaqmaya ka shaqaynayey saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa u fudaydin doono ilaahay baa qowlka xaqa ku sugi doona baa la yidhi leanna su'aalaha mu'minku markuu ka jawaabo ayaa xagga samada laga dhawaaqi doonaayoo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkayga run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaado u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaado u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura baa la odhan doonaa halkaa jannadiisii ha ka daawadee deedna qabriga dhexdeeda mu'minku uu ku seexanayaa jiifka qabriga dhexdeeda mu'minku maalinta uu ku jiifsado maalinka waa beriga qiyaamaha unbuu qabriga ka soo baxayaayo ogaada halka kii kale kaafirkii ama faajirkiina su'aal kastoo la weydiiye wuxuu ku jawaabi doonaa laa adri laa adri kama warqabi buu leeyahay deedna markaasaa la odhan doonaa laa darayta walaa talayta walaa htadayta ereyga iyo su'aasha qabrigee lagu weydiiyey ilaahay xaqa kama dhawaajiyo ilaahay dariiqa xaqee mustaqiimkana kuguma hadeeyo laa darayta ilaahayna kuma ogeysiiyo malaa'igtu madaraq xadiida ayay wadaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mar hadday ku dhiftaan dhulka ayuu 70 xusul buu dhulka quusaya ayuu galayaa deedna inta uu ka soo baxayana madaraq ay soo qaadanayaan way ku celinayaan cadaabkiisa ilaa qiyaamaha waa sidaasuu rasuulku yidhi marka cadaab alqabriga allah inaga badbaadiyo walaalayaal qofka waxa soo socda aanan ogeyn waxa maanta adduunyada ka dhacayana ma ogaan kari ogow waa meesha soomaalideennu ay tidhaahdo waxa soo socda qofka aanan garan waxa joogana maanta ma garto labadan indhood ee kugu taalla ayatuha almuslima labadan indhood ee kugu taalla waxaa loogu talagalay in la adduunyadaada ku eego in la aakhirada ku eego meel dheer ka fikir oo ilaahay caza wajalla ha halmaamin annaasu niyaamun waidaa maatuu intabahu dadku way hurdaan maanta way hurdaan goormay jeefkii hurdada ka kacayaan maalintay dhintaan ee qabriga la geliyo qof walba hurdada ka soo kici doonaa laa qabiil baa ku raaci walaa ubad baa ku raaci walaa dhaqaalaa ku raaci walaa siyaasad baa ku raaci walaa jaamacad iyo dibloomkaad dhiganaysay baa ku raaci walaa aqalladaad dhisatay baa ku raaci aaway dadkii magaaladan asaaska u ahaa ee dhisay ee soo asaasay mee cidba kama noolo maanta halkaa iyakuba ay mareen baan innakuna ay mari doonaa marka adduunyadan inta aan joogno 60 sano 70 sano layna soo siiyey ilaahayna abuuray han caabudno oo ilaahay han ka cabsanno oo cabsida ilaahay haddii laynaga helo walaalayaal nolosheenna adduunyada ku barakoobi walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard qaryad walba dadkaygu hadday ilaahay aaminaan oo ilaahay ay ka baqaan hadday ilaahay aaminaan oo wixii ilaahay wanaagay farayna ay la yimaadaan oo ilaahay ka baqaan oo macsiyada xaaraanta iyo fisqiga iyo fujuurka ay ka baqaan oo cadaabka ilaahay daba socda ay kaga baqaan barakaatu samaa'i wal ardi baan u furaynaa baa ilaahay maxaa maanta ummadeennu marna la qaxaysaa marna la cabsoonaya mar abaar noogu dhacaysaa mar qaxooti u noqonayaan wax kale maaha walaalayaal waa dunuubta innaku aan geysanay weeyaan wamaa asaabakum min musiibatin
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلهي بقرآن كإنه وشيء أوله أدونك كركيك إنت جوكتان بلاية مصيبة إنه ما دعضو إلا بلاية مصيبة هذين نقول دعضو وواحد قعمه نكون جيستين بإلهي هذا أنت بدلنا وبنقع فينا بإلهي ونقوم الصوع لنا عقوبة دين إلهي والرحيم وأنا حريص بدنيه إلهي ونون حريص أمر والبا والرحمة ديس ورحمتي سبقت غضبي إن رحمتي تغلب غضبي ورحمتي وسعت كل شيء آبهن آدم عليه السلام markii suuradiisa la sawirey la joojiyay ruuxda lagu afuufay baa la yiri indhihiisu indhaha wuxuu ku hayay baa la carshigu eegaya la yiri wuxuu arkay aayada quraanka oo carshiga ku qoran aayadee in warahmati wasi'at kull shay ilaahi baa lana xariistayda ayaa wax waliba ka ballaaratay baa ilaahi waa rahmaan waa rahiim waa ghafuur waa shakuur waa afu waa kariim وحليم وستار بالمقعد إلهي إيك والرحمن أدونك أنت اللي جوغو وكان نحريستي سو خلايق دونان أي قادي قالك كنا نحريستي سو كسي حنيو قالك كنا لين مارتان نحريست إلهي الروبك وقود آيو قالك لين ونبتقليد وقود عيار آيو قالك كنا لين بيها وكو عب آيو قالك كنا لين هاودي أكسجينك وكو هلايو والرحمن إلهي عز وجل الرحمن سقال يسقاشك مقع إلهي مقع اسم الذات مويانا مقع الله بعد السفوي كوحيقا الرحمن بالله بالله الرحمن وكان الرحمن دي سعالم كودنا أي ودقادي بقولنا حريصة إلهي جل وعلا أيو أبو ريب النبي قيلي هل رحمة أدونك إلهي أسودا دعيي سقال يسقاشك كرنا مالك قيامها أيا إلهي أدكتو أدوميهيسا مؤمنين إلهي قلنا حريصا دون أبو رسولك صلى الله عليه وسلم هل نحريسة أيا خلايق أدونك ودن داقدي أو قادي أو هو يدو إلمها وقلنا حريسان إيسا أو اللباح إلمه سوقلنا حريسان إيا أو درواق إلمه سوقلنا حريسان إيا أو بسد إلمه وقلنا حريسان إيسا أو أيد إلمه وقلنا حريسان إيسا أو شبرت إلمه وقلنا حريسان إيسا هل نحريسة أدونك ودن قادي ولا ليال سقالي السقاشا كيكا لوا محي وأنا حريسة إلهي مالك قيامها أدوميهيسا مؤمنين يا قبلها مؤمناتك إلهي وقلنا حريسا دون ويان الرحيم الرحمن الرحيم العفو معناه قوام حي وكمر والبا أدوميهيسا دنبي كستي أي قلان أنا كو قبنا إسكن دافا ويان نحريس إلهي وحا كمدا بالليلي ملق خيرك قرى يا خير مركز سميسو أما خير أتكو هذا شو إسلام مركب أو قرى بالليلي لكن ملق الذنبك قرى يا مركب قفكا دعو هذا اللي يرى ما لا يعني يا كادعي إيش يا مال قلد كاقد عدي دكت يا وحير قلد أي مغشي قفف غير يا كادع مركو دم كادعو ملق ذنوب تقرا مركو هذا قرتد ملق خير كقري يبقى كل كجوج هقرين سببتها معي بالله إلهي وسو نقي بالله استغفر الله أوري بالله كتو بدكين لحسا عضود بالله كاديابا لحسا عضود أي الله كاديا قفك مؤمنك يقفك وكدعي بل إنه قفك كسو نقض إلهي وصو نقض وعفو وكريم إلهي كريم وكي ودق بحية بدنه ويان كريم دق بحية بدنه ساكا انتنا هالكافة لذا عافمات بالله سوك عني لحاتي وكونا مسترم بالله سوك عضي هذه نعمت كستو إلهي ونسي الأوران لها ملكا ورمى العاكب بحية وإنها العرق العاكب بحية ودقها العاكب بحية وهذا العاكب بحية وسعودك العاكب بحية وقعنتنا الاستعمال العاكب بحي وهوذا العاكب بحي وبيها مع العاكب بحي موبيلك قعنت أتكسدتان هذه الرسيد لعقتها هذه كذا ماتو وزدمينا يا يوم مرتين كوسو دع مايو كونا صدع مايو هذا لك بحي مايو بل كورما هذه الأوران لها عندها قال العقد تكش بويدو لا عندها قوة كادمية وهذا الكو أسكك تاجية ومقلك استاجية وسعودك استاجية هل كيف بن آدم كل عقد كيلنا هاي بل كورما إلهي الرحمة دي ساكو صعنا وكريم واقع إنه بريء إلهي أمر كيسوي إنه قبر النبي إنه وكيلها عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وفق واقو أبريب النبي قول عليه الصلاة والسلام إساقي الريركي سيه مقالدي سيه دادكي سيه النبض قبه يجركي سيه عافمات قبه من الله حنونين يقوت اليوم مالك وحو عنيين هايستبو نبي قولي
saddexdaa nicmadood qofka ku waabariista buu nebigu yidhi nicmaddii adduunyada taalloo dhan qofka waa la siiyo waxba kama hadhin amni buu ku waabariistay caafimaad buu la waabariistay arsaaqad badan uu bila cunaya maahee quutulyoom wixii maanta adiga ubadkaagu aad cuni lahaydeen ilaa cashada saddexdaa nicmadood buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka waagu ugu bariyey nicmaddii adduunyada taallay oo dhan qofka waa la siiyey buu rasuulku yidhi wamaa bikum min nicmatin fa min allah ayuha alikhwa dhegaysta walaalayaal waxa aan nicmada haysanno ayaa ina siiyey war bal sheega ayaa ina siiyey allah baa ina siiyey allah ilaahay maanta dadku laakiin umay mahadnaqina ogaada afcaasha inaga soo fulaysa iyo hadallada inaga soo baxaya afkeenna ka soo baxaya iyo dhaqanka dhallinyaradeenna ka muuqda shaakiriin sidii shaakiriinta uma soconno nicmadda ilaahay uu kugu nicmeeyey shukrigeygii sidii la rabay uma soconne ogow nin saalixa baa la yidhi ayaa arkay nin labadaa gacmood ku go'an yihiin oo labadaa lugoodna go'an oo indhalo oo indhahana waxba ka arkaynin oo jidhkiisana barase ay ku dhacday haddana ku ducaysanaya oo leh alxamdu lilaahi aladii caafaanii mima btalaa bihi kaiiran min annaas ilaaha waxaan ku mahadiyaa buu leeyahay balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday ilaaha aniga iga ilaaliyey baa mahadla buu ninkaasi leeyahay bal si fiican u dhegaysta walaalayaal tawajuh ninkaasi baa layidhi labadaa gacmoodna uu go'an yahay labada lugoodna uu go'an yahay indhana malo araggiisu ma shaqaynayo barasna jidhkiisu way ku dhacdo uu cad yahay waxa uu ninkaasi uu leeyahay ilaaha waxaa ku mahadiyaa balaayo badan oo addoommihiisa ku dhacday aniga iga ilaaliyey allahaasaa mahadla buu leeyahay markaa ninkii saalix ahaa baa ku yidhi warniyow adiga balaayada kaa maqan maaragtaanay ee dadka kale ku dhacday ee adiga kaa maqaneed ilaahay uga mahadnaqaysaa waa balaayadee waa adiga labadii gacmood way kaa go'an yihiin labadii lugoodna way kaa go'an yihiin labadii maaragtaanay indhoodna waa kanoo ma lihid markaasuu yidhi waxaa anaa nii sheegi balaayada dadka kale ku dhacday ee aniga iga ilaaliyey baan ilaahay nii sheegi dadka kale maanta quluub way leeyihiin laakiin qalbigooga ilaahay marna kuma hayaan oo qalbigooga cabsida ilaahay ma gelin oo ilaahay ma xasuustaan oo qalbiga macrifada ilaahay kuma haystaan carabna way leeyihiin carabkana ilaahay kuma xusaan oo kuma dikriyaan ama aniga ilaahay wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran ilaahay aniga wuxuu igu deeqay qalbi shaakira baa ilaahay siiye qalbi mahadnaqaaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shukrinaya iyo wuxuu siiye carab daakira ilaahay siiye carab ilaahay ha ku xuso yaa macshar shabaab dhallinyaro majmacan dhallinyar buu u badan yahay waa u jeedaa laakiin nicamta ilaahayna siiye maanta ilaahay ma ku adeecnaa bay kula tahay maqalkii ilaahay ma ku adeecday araggii ilaahay ma ku adeecday caafimaadkii ilaahay ma ku adeecday dhallinyarnimadaada ilaahay ma ku adeecday iqtanim khamsan qabla khamsin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shan nicmadood inta aad qabto ee shan kale aysan kugu dhicin buu nebigu leeyahay ka qaniimayso wax ka qabso waa shantee intaad caafimaadka hayso ka faa'iidayso caafimaadka intaanad bukoonin dhallinyarnimada ka faa'iidayso intaanad gaboobin nolosha ka faa'iidaysa inta aanad dhimanin ghinada ka faa'iidaysa intaanad faqiir noqonin firaaqa ka faa'iidaysa intaanad noqonin mashquul shantaa nicmadood intaad haysatid dhallinyarnimadu waa nicmad ghinadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad noloshu waa nicmad firaaqa gacan bannaanidu waa nicmad shantaa nicmadood ilaahay daacaddiisa uga faa'iidayso maalin baad nicmaddaasi ay gacantaada ka bixiya ogow caafimaadka maanta aad haysid maalin buu yaraani doonaa yaraan oo la odhan doonaa keli baa xanuunaysa macaan buu yeeshay dhiikar buu yeeshay dheg baa xanuunaysa ilgows baa ka xanuunaaya maalin buu caafimaadku isdhibi doonaayo ogow dhallinyarnimada xooggala maanta eed meel walba u tallaabsanaysana maalin bay isdhimi doontaayo ogow ood noqon doontaa 80 jir oo maqalka isdhimi oo aragga isdhimi ood odhan doontaa kan kumuuhaa baad odhan doontaa hadalka kor igu qaad baad odhan doontaa kuma maqlayee markaad tallaabsanaysana tallaabada aayar baad u qaadi doontaa waa goorma waa markuu qofku da'diisu ay wanaato jilco weeyaan haddaad nooshahay maanta faraaqaan nolosha ka faa'iidayso waayo maanta arlada dusheedaad socotaa laakiin barritooda kulligeen waxaan geli doonaa arlada dhexdeeda alam najcal alarda kifaata axyaa'an wa amwaata baa ilaahay miyaanan bini aadanka dhulka ku fullaysiin keenna dhintayna dhulkaa unbuu ku dhex jiraayo dhulkaa haya keenna maaragtaane noolna waa kaa dhulka dul socda
marka dhulka markaad socoto marka sideed u socon sideed socodka xorma u tahay may ilaahay baa yidhi walaa tamshi fi lardi maraxa arlada dusheeda marka aad socoto in aadano kibir iyo qooq arlada dusheeda ha u dulmarin baa ilaahay ku leeyahay innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula baa ilaahay yidhi haddaad arlada korkeega markaad socoto kibir iyo maaragtaane khuyalaa aad u marto ilaahay waxa uu ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid kibirka iyo xaragada arlada dusheeda aad la dulmaraysid dhulkana ku dilaacin maysid buurahana dharar ma gaadhaysid baa ilaahay yidhi bani aadam baa tahay xaariya kaadiilaa oo daciifa oo miskiina oo faqiira oo mar walba baahan baa tahee ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu le dhulka aayar u dul soco aayar oo mu'miniinta waxaa lagu ammaanay aladiina yamshuuna cala alardi hawna arlada korkayga markay socdaan baa ilaahay yidhi aayar bay u socdaan aayar ma ordaan ma degdegaan isma qalqalluuciyaan cid kale kuma daydaan aayar bay u socdaan aayar waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama jaahiliinta meelahaa fadhida markay la hadlaanna waxay ku yidhaahdaan qaaluu salaama nabad baad naga heshaan annaka nabad baad naga heshaan meel xun fadhiisan maayaan si xun u soconi maayaan wax xun maqli maayaan walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasar waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula ilaahay baa sheegoo yidhi tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay maqalka iyo aragga iyo hadalka iyo qalbiga intaasi waa nicmad weeyaan nicmaddaa ilaahay ku siiyey meel xun nicmaddaa ha dhigin maqalkaaga meel xun ha dhigin araggaaga meel xun ha ku eegin qalbigaaga iyo caqligaaga wax xun ha kaga fikirin socodkaaga meel xun ha marin ilaahay baa kule caza wajalla nicamtaasoo dhan hee su'aal baa ka dambaysa su'aal laba nicmadood buu nebigu sheegay maalinka qiyaamaha dadka ugu horraysay la weydiinaya waa laba nicmadood buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam biyaha qabow ee macaaneed cabbaysid iyo jidhkaaga suuradda quruxda badan le ilaahay kugu deeqay waa labada nicmadood ugu horraysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ee qofka bini aadamka qiyaamaha la weydiin doona buu rasuulku yidhi jidhku waa nicmad ilaahay ku siiye u fiirsa xayawaanka bal dameeraha eeg oo ayga eeg oo dhurwaaga eeg oo dibiga eeg oo makhluuqaa ilaahay abuuray eeg kulligood way fooraraan adigana bini aadana kor baa ilaahay ku taago qurux buu ku siiye qurux ilaahay caza wajalla markaa nicmaddaa inaan ku caasin lacagta ilaahay dhaqaalaha ilaahay ku soo gelinaayo meel xun ha ku bixino ogow haddaad meel xun aad ku bixisaa maalinka qiyaamaha su'aal baa ka dambaysa caliy ibni abi taalib baa lagu yidhi adduunyada bal noo sifee caliyow noo sifee markaasuu yidhi adduunyada maxaa niigu sifeeyaa adduunyadu awalkeegu waa tacab aakhirkeeduna waa dhammaad xalaasheedu waa xisaab xaaraanteedu waa ciqaab ninka adduunka dusheeda hanti ilaahay ku siiyey waa la fidneeyey ninka adduunka dhexdeeda kaasina waa ku murugsan yahay buhi adduunka dhexdeeda adduunka raaxa ma taalle ogow nololna ma taallo hadday raaxa taalla raaxa aakhiraday taallaa hadday adduunyada raaxa ay taallana dadka ilaahay ku xidhan ee mu'miniinta ayaa qalbigooda ilaahay ku raaxo geliyey sidaa darteed walaalayaal diinta islaamka ilaahayna siiyey diinteenna islaamka waa inaan ka shaqaynaa waa inaan barannaa waa inaan iyada isku tixgelinnaa waa inaan isku jeclaannaa muslimku muslimka kale waa walaalkii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuusan dulmin yuusan cadowgiisa gacanta u gelin inuu xantana lama oggolo inuu ceebtiisa raacraacana lama oggolo walaalkaaga muslimkaa haddaad ceebtiisa aad raacraacdo adaa ku dhib qabay ogow marka ilaahay caza wajalla khayrka allah ina waafajiyo amiin dhahada dee raalli naga ahaada annaguna hadh baan taagannahay ninkuna cadceed baan taagan